10 arrimood oo haddaad eegto kugu filan cibro qaadasho iyo toobadkeen rasmi ah. Haddaba muuqaalka intaan bilaan waxa ka codsanaya fiidiyowga inaad like noo saartid, sidoo kale channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe leh. Soo eeg siiradii rasuulka sallallahu alayhi wasallam si aad wax uga ogaato sifaadkiisii wanaagsanaa. Waxaad ka dheeraad doontaa iimaan la'aanta iyo adduun jacaylka. Waxaad ka dhaxli doontaa dhaqanka nolosha iyo waajibaadka saaran qofka muslimka ah. 2. Soo eeg xaramka. Noloshaada hal mar ama saacad kasta hal mar soo eeg si aad iskaga baabi'iso wixii dambi ah ee aad gashay. Waxaad ka dheeraad doontaa xumaan dambe, waxaadna ka dhaxli doontaa taqwad iyo alla ka cabsi. 3. Soo eeg xabaalaha toddobaad kasta hal mar si aad u ogaato noloshu waxay tahay. Waxaad ka dheeraad doontaa macaasida. Waxaad ka dhaxli doontaa camal iyo cibaado suuban iyo qulubtaada oo qoyda. 4. Soo eeg isbitaalada bil kasta hal mar si aad u ogaato caafimaadku wuxuu yahay. Waxaad ka dheeraad doontaa dacaayadda waqtiga aad caafimaad qabto. Waxa aad ka dhaxli doontaa karti iyo firfircooni dheeraad ah iyo in aad ka faa'iidaysato waqtiga aad caafimaad qabto. 5. Soo eeg hal mar oo ka mid ah noloshaada jeelka ama xabsiga si aad u ogaato qiimaha xorriyaddu ay leedahay. Waxa aad ka dheeraad doontaa ku dhiirashada dunuubta ka dhanka ah dadka kale. Waxaad ka dhaxli doontaa edeb iyo adeec. 6. Soo eeg maktabadaha iyo xarumaha kaydka aqoonta si aad u ogaato ereyga qoran. Waxa aad ka dheeraad doontaa wax lagaaga sheekeeyo. Waxaad ka dhaxli doontaa cilmi iyo aqoon kororsi. 7. Tijaabi noloshaada guurka xalaasha ah si aad u ogaato raxmadda iyo naxariista uu Ilaahay Qur'aanka inoogu sheegay ee nolosha lamaanaha. Waxa aad ka dheeraad doontaa zinada. Waxaadna ka dhaxli doontaa ubad iyo arsaaq waasac ah. 8. Soo eeg iskuulada iyo madrasadaha si aad u ogaato qiimaha waxbarashada ay u leedahay bulshada. Waxa aad ka dheeraad doontaa jahliga. Waxaadna ka dhaxli doontaa faham iyo mustaqbal fiican. 9. Soo eeg macallimiinta iyo goobaha ciyaalka wax loogu dhigo maalin kasta hal mar si aad u ogaato waxa uu dulqaadku yahay. Waxa aad ka dheeraad doontaa dabeecad xumaanta. Waxaadna ka dhaxli doontaa khibrad iyo dad kala duwan la dhaqankooda. 10. Soo eeg goobaha ka baxsan magaalooyinka miyiga si aad u ogaato halka aynu ka nimid. Waxaadna ka dheeraad doontaa inaad ka faanto hidahaagii soo jireenka ahaa. Waxaad ka dhaxli doontaa hal adeeg iyo hiirasho milgihii dhaqankeenna iyo dhab ahaan waxa ay ku tirsan tahay nolosheennu.